sheekh sayladina waxay leedahay waalidka marka uu nool yahay iyo marka uu dhinto ducada loo duceeyaa ma siman yihiin mise way kala culus yihiin oo kala miisaan badan yihiin afiiduna wajazaakallahu khayra ducada waalidka loo duceeyo oo dab marka uu dhinto ayuu u baahi badan yahay waayo markuu dhinto camalkiisiba go'ay waladka saalixa ee u ducaynaya way gaadhaysaa marka waalidku ilaahay u dambi dhaaf way gaadhaysaa ilaahay u naxariiso labadii waalid way gaadhaysaa sadaqadu u bixiya way gaadhaysaa markuu dhinto in aad loogu duceeyo daqiiqad kasta xusuusato iyo mar kasto maaragtay aadeen amal saalixa sameynayso inuu qofku uu ilaahay ka sawaabi ilaahay ajarkaasi inuu u duceeyo labadii waalid marka uu dhintay buu baahi badan yahay markan uu nool yahayna waa loo ducayn karaa hadduu xanuunsano ilaahay caafimaad sii hadduu iska caafimaad qabo ilaahay maaragtay caafimaadka u siyaadi ilaahay taacada ilaahay waafaji ilaahay khayrka ku sug ilaahay khayrka waa loo ducayn karaa laakiin markuu dhinto ayuu u baahi badan yahay waayo amalkiiba istaagay markuu qofku dhinto amalku go'aya ilaahay maaragtay waalidkeennii allah u naxariisto wixii dhintay waxa nool ilaahay ha xafido ha ilaaliyo barakallahu fiikum